wiilkeen wuxuu halkaan ka helay qasacadaan kadib wuxuu isku dayaa inuu furo laakiin isla markiiba meesha wuxuu ku dhex arkayaa ukun. Tani waa ukunta kalluunka. Wiilkan wuxuu bilaabay ukunta inuu soo qaado uuna geeyo xaafadii Wilban isagoo tusaya aabihii. Wiilkan baash aad ayuu fiirinay Wilban isagoo moodin inay tahay ukun laakiin markuu si fiican u fiiray wuxuu dareemay inay baash tahay ukun soo qaado wuxuu keenay xaafadiisa. Wiilka markaa aabihiis waa dhaqtay markuu meesha ka naabo wuxuu bilaabay baash inuu meesha saaro kadibna uu riixo wax ay tahay si uu u ogaado. Kaas isagoo riixay waxa mar uu qeynay wiilkiisa wuxuu isku dayay inuu banaanka soo cararo. Markuu banaanka soo baxan wiilka wuxuu dhahay baashaas maxay dhaqtarku wuxuu jawaab baashaas waa ukun. Ukuntii ayaa markaan waxay bilaabaysaa si tartiib ah inay u burburto. Wilban waxa soo baxaya xayawaankan. Eega markii hore waxay maleynayaan inay tahay kaliya kalluun balse waxa kalluun uu ka weyn yahay waa xayawaan dad cun ah. Adigana daawade ha ilaabin muuqaalka hina like inoo saarto. Wiilkii ayaa ukunta fiirinaya markuu arkan wuxuu arkay xayawaan aad iyo aad u weyn inuu ka soo baxay. Dhakhtarkan asigana markuu arko la yaabay xayawaankan sidaan u yaala sababtoo ah eega markooda hore waxay maleynayaan kaliya inuu yahay xayawaan iska caadi ah laakiin waa diinsoor. Markaasi dhakhtarku wuxuu bilaabay xayawaankan uu ku soo xiro meeshan maalintii xigta markii la gaarin xayawaankii waxa uu sabaynaanayaaba. Xataa xayawaankan waxa maleynayaba diinsoorka inuu ka weyn yahay. Markaasi dhakhtarku wuxuu bilaabay inuu habeenadan uu wax kadibna uu dad kale wuxuu tusay xayawaanka sidii uu yaalo. Markaasi dhakhtarkii wuxuu ku faanay xayawaankaas inuu isaga soo qabtay. Laakiin sidoo kale waxay sheegayaan xayawaankan inuu ku soo baxay gantaalkan Wilban isagoo ku dhacay badda kadibna xubkiisa tartiib banaanku uu soo aaday. Markaasi uu soo qaatay wiilkani marka wiilku wuxuu tusay baasha meesha ka soo qaaday uuna geenay dhakhtarka iyo ciidanka kulligooda. Markaasi arkaan ciidankii wiilka meesha ka soo bixiyay ukunta. Iyagana markaasi waxay bilaabayaan bisla markii xayawaankan soo wataan magaalada Wilban ayagoo raba inay ku faanaan inay soo qabtaan xayawaankan aad iyo aad u weyn. Ilaa ugu dambeyn xayawaankii isku day inuu soo baxsado. Dibna waxa ka shakinaysa xayawaankan inuu baxsado gabaraan baawarka ay joojinaysa markay gadaal sii furtaan xayawaanka ay gacanta ka qaniina.